maalin wanaagsan subax wanaagsan marka hore saaxiibadeeda muuqaalkan wuxuu ka imaanayaa deegaanka ceelasha biyaha oo ah duleedka Muqdisho waxaad u malaynaysaa in ciidan ka tirsan dawladda uusan halkan ku sugneen ammaankan uusan ka faal qaadi karin goobtan ganacsiga ee farmashiga ah waxa soo galaysa koox shufta ah oo dhalinyaro aad u daayara iyagu waxay isku tilmaamaan gaagiska xaafadda waxayna dhibaato u geysanayaan ragga iyo dumarka kuwaas oo ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha muuqaalkan waxaad ku arki doontaa lambarka EV Pluska baasweerkiisa iyo lacagta oo laga sii shubanayo garaacis iyo tooreen loogu darayo marka hore waxaan ka codsanaa intaan gudaha u galin muuqaalkan qabo haddii aad share gareysid adiga waxba kaama dhibi doono waxaan kula dagaalami doonaa dadka dhibaatada ku haya dadka degan deegaanka ceelasha biyaha sida dhalinyaradan oo kale waxaan gaarsiin doonaa muuqaalkooda koox kasta oo ammaanka ka tirsan wax ka qaban karto mar kale maalin wanaagsan halkan waa farmashi ku yaala deegaanka ceelasha biyaha koox dhalinyaro ayaa soo gashay iyaga oo markaa bursanayo wiil dhalinyarada kamida deegaanka ceelasha biyaha iyagu markaa waxay doonayaan inay telefoonka ka qaataan garaacis iyo jirdil iyo toori ay iskugu dareen waxaad maqlaysaa marka codka iyaga oo baasweerka sheega dhahaya markay telefoonka ka qaataan dabadeed lacagta ay ka shubanayaan markay lacagta ka shubtaan codadka sida hoose aad ku maqli doontid waxay ka sii dileed gareyn doonaan baqshada dabadeedna teleefoonkooda ay ka qaadan doonaan halkan waa farmasi ku yaala deegaanka ceelasha biyaha muuqaalkan marka sida loo duwaad isweydiinaysaa dabcan kaamirada qarsoon ee CCTV-da ay ku jirtay farmasiga ayaa duubtay ilaa iyo weliba codka oo fasiix ayaad maqlaysaa waa koox iyagu markaa isku arka gaangis waa koox isku arko inay yihiin kooxda ugu awooda badan ee deegaanka ceelasha biyaha gacanta ku hayso aaway ciidamadii dowladda Soomaaliya aaway ciidamadii booliis militaarka ee dhawaan loo geeyay sugidda ammaanka dadka degan deegaanka ceelasha biyaha dadka degan deegaanka ceelasha biyaha waxay dhibaato ku qabaan marka dhinac gaangiskan dhinacna shabaab dhinacna askar ka tirsan ciidamada dowladda oo iyaga dhac iyo dhibaato u geysto shabaabka maalin kasta ayay ku dilaan deegaanka ceelasha biyaha dadka ciyaalkana maalin cad ayay sidaan dadka ugu dhex bursanayaan kadibna teleefanada ka qaataan waxaa ku sii dheer marka xaafadaha kala duwan ee deegaanka askartii la rabay inay ilaaliyaan badqabka deegaanka iyo dadkaba iyaga ayaaba dadka dhaco yaa laga ilaalinaa yaana loo ilaalinaa waa heerka amaba nolosha adag ay ku jiraan marka dadka degan deegaanka ceelasha biyaha muuqaalada noocan oo kale ah dabcan wajiyadooda markaad fiirisid waa la soo qaban karaa dhammaantood kani waa marqaati iyagu markaa isku marqaati fureen dhalinyarada qaarkood dharka siibtay shaatiyadooda wajiyada ku xiranaya muuqaalkan wuxuu noqon karaa midka ugu wanaagsan taliyaha deegaanka ceelasha biyaha uu ku howlgali karo dabadeedna uu kusoo qaban karo kooxdan shuftada ah ee dadka dhibaatada ku hayso muuqaalka waxaan kugu koobayay marka sidii lagula dagaalami lahaa dadka deegaanka ceelasha biyaha dadka dhibaatada u geysto ee markhaatiga cad maanta iyagu isku ah muuqaalkoodana wax badan wajiyadooda si sax loo arki karo taliyaha deegaankana howlgal uu ku sameyn karo dabadeedna uu kusoo qaban karo dhammaan shuftadan dadka dhibaatada ku hayso muuqaalka qaba mar kale la wadaag saaxiibadaada kale si deegaankaaga ugu badbaado dadka sidaan oo kale inay ka dhaxlaan amaba ay ka dhashaan kadib markii kuwaan qaataan tuug kasta wuxuu ku sii arki doonaa in maalin ka mid ah maalmaha sidaan oo kale baraha bulshada loo keeni doono isagoo wax dhacayo dhibaato geysanaya mahadsanideen